warar teel ah ayaa ka soo baxaya gabadhii fiidiyowga laga tuubay ee gabdhaha kale ee Soomaalida ahaa ay dhibaateynayeen iyadoo hadba warar iskhilaafsan ay ka imaanayaan. Saciid Maxamuud Geyr oo ah asaga isha kaliya dhaqdhaqaaqiisa soo tabinaya wararkan ayaa waxa uu sheegayaa in lala soo xiriiray qofkaasina uu sheegay la soo xiriiray gabadha magaceeda. Qofkan uu magaciisa ku sheegay Cabdinaasir sheegayna in walaashiis ay tahay gabadhaasi fiidiyowga laga duubay lana yiraahdo Gano ayaa waxa uu yiri Saciid Maxamuud Geyr waxa uu qoray sida tan waxa ila soo xiriiray Cabdirasaaq oo walaal la ah inantii yareed ee Oromada ahayd. Waa sidoo qoray laakiin qoraalka loo soo qoray waxa ku qoran Cabdinaasir. Wuxuu yiri waxaan joogaa magaalada Nairobi waxa aan u sheegay in cadaalad loo raadinayo walaashii walina aan dhibanaha la arkin. Qudhiisu ma oga meel ay joogto. Sidoo kale waxa uu ila soo xiriiray jaaliyadda Oromada oo gabadha yar raadinaya. Gabadha ayaa la raadinaya laakiin waxa la aqoonsaday gabadh kamid ah gabdhihii dhibaateynayay sida aan tabinteena horeba idinkugu sheegnay oo la yiraahdo Najma. Daawadayaal wixii ku soo kordha mar walba waan idin soo gudbinaynaa. Dad fara badan ayaa arrinkan ka hadlay oo in la helo garab ku siiya hase yeeshee ilaa ay hadda warar sax ah oo laga hayo ma jirto. Gabadhi dhameed ayaan lahayn baaritaan ayaa lagu hayaa ayuuna yiri wixii ku soo kordhana baahinteena kale ayaan idinkugu soo